camalku marka laga shaqeeyo gurigan quruxda aan qabo dhul banaanoo qashimo xoolo dadku qoftirta ku xaarto wala awal maayo quruxdan say ku timid shaqay ku timid geedahaas iyo quruxdaas waxay ku timid shaqay ku timid dadkan asagoo dhagxa caabudaya in nabi maxamed la soo diray ayaa laga shaqeeyaa dad ayagoo nool janno laga ballan qaadaa faqis weey asharatul mubashiriin ka soo bax dad kalena asxaabu nabi atbaacu nabi wadaas salama haddii la shaqeeyo muraadka barnaamijkan kale waxa waaye haddii la shaqeeyo muraadka waa la gaaraa laakiin ma jirto cid adiga aya shaqo ku soo qabata ku soo dhawaa shaqadiisa qabsee waa tabcan yihiin way isku toosan yihiin qabso cid ku dhayso ma jirto ودلو تبليغ وباهية لما خروج عن بحر نالم أرجع ودلو خروج وباهية موان سانو هوانو آمن سيه وش النبي سليمان أكفرنا نبي سليمان انتي جن وشيسي أقرق المغلجرت إلهي سوى جن إنه سوى حقين داتك أتصوحون هاي لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين هذا مستقبل كحكوجين إن سليمان انتي وقاداني ما كانت تقيل هاي مدلودات كدلتي أقف والبما إلى الركض من بدا عمله من بدا عمله لم يسرع نسبه قف عمل كيسو ديب ودغاي نسب كيسو ما ورد ما غارسي كار قبلها خير الله سيو حفيظ كاس قلبيي كرديسي بحشي وزمزم اي كميدين سلاده نو شيغي دونيا iyo kuwa kale la sii jiray ma tiri kare gabdhaha madulad gabdhaha raaya dhawrta ama dalka joogaan ama dibadda ha jiraan nimanka mudullood walaxa ku jiro waxaan haysta dhammaantoodna cadaaladaas saldhig u ah haddana qofku garta sheegi karin oo aysan xaqa ku dhaw qul alxaq walow kaana muran oo dhahay qaraabo dadka halkan jooga iyo dadka na daawo doona insha Allah waa salaan kadib waa qiimo iyo xaflad iyo soo duco iyo sharaf iyo mahad celin xafladu inta way isugu jirtaa waxaan xaqiiqsanay maanta ragii golaha ka joogay beesha mudullood ama golaha dhaqanka iyo horumarinta beesha iyo siyaasadda horumarinta in ay dadkaas lamida oo sharaf leh oo mudullooda inay jiraan inay xusuusan yihiin in ay la shaqeynayaan waliba shaqada meesha ugu culus imkaaniyaad waay waa dhaqaale waay wax walba caalamku hadda waxay ku xiran yihiin dhaqaale marka waxay ka soo baxeen qurba joogta golaha siyaasadda iyo horumarinta beesha mudullood hadday yihiin gabdho iyo wiilal iyo rag odayaal ah intaba iyo culimo iyo dhaqan wax weyn ayay golahan maanta u qabteen waxaana leenahay jazaakumullahu khayran ilaahay idinka jizeeyo runtii waa mas'uuliyad dhankooda hadday qaateen waxaa la rabaa dhankeyna inaan qaadano horta guddigan maanta oo meeshan ku fadhiyo sheekh muuse baarar iyo jidada ku shiri jirnay
maanta horta horumarta la gaaray ugu sareysa waxbaa mudullood maqaam u yeeshtay wahada min fadli illaahi wahada min fadli illaahi maqaamkan fadli waa hase yeeshee sheekh muusow maanta badashan oo hadda annaga aan ku midaysannahay waxay sugayaan maanta inay guddoomiye dhisaan iyo guddoomiye ku-xigeen iyo marjac inay dhisaan arrintaas ayaa maaragtay haddii oo calime haddii dhintay guddoomiyahaani dhintay howlo badan oo adagaa yimideen dib u dhaca u yimideen marka waxaan kuu sheegaynaa sheekh muuse guddiga haddaan nahay annaga habeen iyo maalin khamiis kasto iyo isniin kas intaan nimaadnaa ma ka baaqano shirka waa joogto waay intaasna waxba horumarka muduloodaa laga sheekeyahay unka haddaan mudulloodnahay towfiiq allah na waafajiyo ummadda soomaaliyeedna kulligeed towfiiq allah waafajiyo wixii dhibayana allah ka hayo intaas markaan ka soo baxo ilaahay wuxuu yiri wactasamuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu mudullood inuu tafaraaruqa iska dhaafo oo xirga ilaahay qabsado oo iswanaajiyo oo isdhowro ilaahay wuxuu yiri wajacalnaakum bacdakum bacdan bacdigan ka fadla yeelo ninka walaalka ah hadduu saldanad hayo waa inaad u quurtaa hadduu wax yahay oo dhaqaale haysa waa inaad u quurtaa waxay suquurid la'aanta waa inaan iska daynaa haddaan nahay mudullood xirga ilaahayna qabsano isna waafaqno dad isdaba socdo walaalo inaan naqana dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafka qiimaha badan oo maanta halkan isugu timid beelweynta mudullood qaybteeda siyaasadda iyo horumarinta dhammaantiin wada salaam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa sharaf iyo cizi maanta in halkan isugu nimaado isu hambalyayno isu duceyno khaasatan xafladdaanu maanta waxay ku saabsan tahay in dadka qurba joogta oo dibadda jooga wiilo iyo gabdho in loo hambalyeeyo loona duceeyo waxaan leenahay ilaahay meeshay ka keeneen wax khayrla allah ugu bedelo waan u hambalyahaynaa hambalyadaas kadib sharafay noo tahay dhammaanteen inaynu halkan isku marxabayno inaynu maaragtay is aragno sida caadiga ay ahaydba beelweyntu waxay isu timaadaa 2 maalin asbuuci jimca isniinta iyo maalinta khamiista marka saragaas ka sukow maanta waxay ahaydba munaasabadan la isugu yimid runtii meeshan waxaa ka dhacay walaalahayga horeeyey oo sheekh muuse iyo walaalkay weydow iyo ragga iga horeeyey ay sheegeen in dadka walaalaha ay dhammaantood iscafiyaan leeskuna duubmo oo wactasimuu bixablillaahi jamiican la naqdo si ilaahay qur-aanka ku yiri in dadku ay dad walaalo yihiin dhammaantoodna ay unitigooda iyo ay ilaaliyaan midnimadooda dhammaan waa salaamantihiin marti sharafka iyo culimaadudiinka khiyaarta iyo golaha mudullood salaan kadib laba kalimo ayaan ku daray aniga hadalka inta badan waa la sheegay sanadka hore wuxuu ahay halku dhigayna wuxuu ahay difaaca iyo ka hortagga dulmiga ka socday waddanka insha allah sanadkan waxaan rajeyneynaa sanadka baraarujinta iyo wacyigelinta beesha mudullood inay ahaato oo la wargeliyo la wacyigeliyo cid kasta oo mudullooda fanni kasto gabdhaha siyaasiyiinta culimaadudiinka meel kasta ay joogaan soomaaliya dal iyo dibadba marka halku dhigaynu waa baraarujinta iyo iska warqabka haddii intaas dhacdo waxaa imaanayo isku xidhnaashadayna iyo ujeedkii aan shalal lahayn inaan dib u hanano insha allah waana ku guulaysan doonaa waana noo ballan insha allahu in sanadkan uu noqdo sanadka wacyigelinta iyo midnimada iyo iswargelinta marka sidaas ayaan kusoo gabagabeeyo waxaan aad u soo dhoweynaa kulankan sharafta badan oo dadka ciziga iyo sharafka bulshada ku dhexle ay kasoo qayb galeen aadaan u soo dhoweynaynaa walaalaha madasha qurba joogta oo sharafta badan oo na garab taagan oo dhul qabooba oo ciriiri badan wax ay ka jirsheen oo nolola intay nafta ka qabteen dadkooda ku garab taaganna ilaahay barako badan u yeelaan leenahay bedel khayr qaban allah siiyo waxaan sheekh muuse macallin beriga u dhiiba fadhiga ugu horeeya bulshada
furaheeda waa diinta culummada waaye in mahaan lagu qabto fadhiga ugu horeeya soo socda bulshada culummadaynu inay fadhiistaan dadka la hadlaan tawjiidshaan u yeeraan khayrka ku horkacaan annaga haddaan muduloodnahay noloshayna dhaqan iyo diin aan nagula hogaamaya annaga dad siyaasad lagu hogaansho ma ahayn culummadayna iyo duubkaynaan ka dambayna lamadiina waa naga naxuuseen koow waxaan soo jeedaa culummadu inay iftitaax u noqoto qaybta ugu horeysoo bilaabaysa la hadalka bulshada taas anugu ku biirinaa warka waa soo gaabinaa qof kasta ee mudulooda ee caalamka ku dhibanna ilaahay caafimaad ha siiyo waxay culeysahay allah ka qaado dadkana habartoodii adoogooda allah uga dhigo annaga waxayna dhibaa ilaahay waa ujeeda ilaah waxaan kaa codsannay qofta dadku hay tuugaana adaana yidhi rabbi wadaan ku tuugaynaa waxayna dhibaa ciriirunahana ilaahu naga qaad waxaan rabnaa ilaahu waa ogtahay ilaahuna si shariga shaydaan allah naga xijaabo ducada maliya waa lailaha male bacda salaam marka ugu horeysa waxaan ku salaamaa ruux kasta oo magaca mudulood ku yimid kuwa ka mid ah golahana waxaan ku salaamayaa sidaasoo kale mansibka ay u hayaan mudulood waxaan guud ahaan aan ugu hambalyaynayaa aniga oo ku hadlaya magaca golaha magacayga iyo magaca mudulood iyo guud ahaan gobolka banaadir waxaan rabaa inaan halkan uga hambaliyeeyo inta aan hambalyada gelin waxaan rabaa inaan muujiyo maanta isu imaatinkan ka dhacay xafiiska golaha siyaasadda iyo horumarinta mudulood oo ducada ah waxaa dhigay golahan wuxuu u diyaariyey inuu uga mahad celiyo dhammaan madasha qurbo joogta mudulood ee sida hufnaanta ah daacadnimada ah uu garab taagan inay hormaraan danaha mudulood kana shaqeeyaan mar kastaba inay muxuu ahaa shaqadii ay qabteen oo ay mudulood u qabteen inay sii laba jibaaraan gurigan waxa kireeyey waa madasha qurbojoogta mudulood waxa dhigay oo soo qalabeeyey waa madasha qurbojoogta mudulood waxaa lala wadaagaa sida aada xusuusataan isu imaatinkii iyo midayntii mudulood goglihii ka dhacaya macalin nuur waxaa dhigay mudulood sidii u dhamaa laakiin tan hadda aan joogno specially waxay gaar u tahay madasha qurbojoogta mudulood waxaa sababay inaan muxuu ahaa aan xilligan degdegta ah aan dhigno inaan dhiiri gelinno walaalaheen madasha qurbojoogta oo u istaagay ayadoon la sugaynin xilligan wakti gaabanna ay muxuu aha intaan ku dhex tuurnay iyagoo ogaa inay bixiyaan kiradii gurigan aan hadda dhex joogno oo quruxda badan muddo sanad ah waxaan uga hambalaynaynaa shaqadaas ay qabteen dadku guud ahaan waa u hambalaynaynaa gaar ahaanna waxaan u hambalaynaynaa oo muhim noo ah maxaa jira qofka markuu wanaag sameeyo waa la sheegaa wanaaggaas waxaa loo sheegaya waa inay dadka kalena ay ku daydaan wanaagga waa la isku daydaa xumaantana waa la reebaa qofka hadduu xumaan sameeyo waxaa leedaha allaha kaa cafiyo adigana ha u noqon laakiin markii uu wanaag sameeyo wanaagga waa la sheegaa run ahaanti walaasheen samsam xaaji cali meel aada u qurux badan oo ay ka timid oo dhiirigelin ah waxay shubtay muddo 6 bil ah gurigan ayadaa shubtay kiradii gurigan muddo 6 bil ah waxaa naga shubay walaasheen samsam marka waxaan leenahay waa mahadsan tahay waana uga mahad celinaynaa cid kasta oo ka mida mudulood ee dadka mudulood wax u qabta ayadana waa u mahad celinaynaa guddoomiyaha golahan guddoomiye ku-xigeenka inta ka mid ah si guud ahaaneed ayaan uga mahad celinaynaa waxa ay qabteen waxaan rabnaa
ma kala jeclin laakiin waxaan aad u soo dhaweynaynaa cidda danta mudul ka shaqayso waxaan aad u soo dhaweynaynaa cidda danta mudul ka shaqayso dad badan oo hore uga shaqay jiray haddana ka shaqeeyo una taagan inay kasii shaqeeyaanna waa joogaan marka waxaan leenahay walaalahayn asli ha ahaato guddoomiye ha ahaado dhammaan qurbo joogta madasha mudulood waxaan leenahay waa mahadsan yihiin waxaad qabateen wax wanaagsan oo qiimo badan geed miro leh oo mirihiisii biyo la-aan inay muxuu ahaa u baaba'aan ay suurtagal ahayd ayaad waraabiseen haraa laga helay miraa laga helay waxaan idinkaga mahad celinaynaa waxa aad samayseenoo wanaagga ah waxaan rabnaa dadka kale inay ku daydaan oo ay qaraabadooda ehelkooda tolkooda dhibaatada haysa waa ogtihiin dhulkoodii waa la haystaa xor ma aha magaaladii xurku ma aha oo waxaan taagannaha maanta sida aan hore u sheegnay adinkaan ad ogtihiin inaan lagala tashan waxa ka dhacaya dalka suurtagalla maaha gurigaadii in muxuu ahaa lagaaga taliyo adnaad ogolaatana wax suurtagal maaha dadku ma ogolaan doonaan sidaad u diideen meeshii lagu tashan lahaa dadka lagu abaabuli lahaa runta la isugu sheegi lahaa sidaad u diideen oo aad u bixiseen dhaqaalooda dadkuna waxay diyaar u yihiin in aysan marna ogolaan doonin in loo taliyo si sharci daraa lagu taliyo waxay ogol yihiin haddii loo talinayo in si sharci ah oo nidaamkii lagu heshiiyey oo dastuurka ahaa oo soomaali ka dhexeeyey in loogu taliyo ogol yihiin waxaa kaloo ay diidan yihiin hadda kadibna aysan ogolaanayn in laga qaado cashuur gudaha dadkoodana aysan kusoo noqon laamiyadii waa naga baaba-een ardadii iskuulladii ma haystaan caafimaad uma haayaan waxaan dhahnaa takasiga aad bixinayso cashuurta maxaad ku bedelataa maya waxaan leenahay wixii hadda ka dambeeyo golahan siyaasadda iyo horumarinta mudulood isaga oo kaashanayo mudulood guud ahaan gaar ahaan dadka degan banaadir iyo soomaaliya oo dhan wuxuu ka soo horjeedaa wax alla wixii caqabad ku ah horu socodka iyo hanaan wanaagga doorashooyinkii loogu talagalay in dalkan si sax ah oo nabad ay uga dhacaan haddii ay ka dhici waayaan wuxuu ka soo horjeedaa uusan ogolaan doonin in xaq darro wax lagu boobo sharci darro wax lagu boobo ka soo horjeedaa waxaan leenahay warku waa inaan sii dhaarino marno mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalaynaynaa walaalaheena shaqadan nala qabtay ee noo qabtay waxaan leenahay meeshii ay ka soo qaadeen bedel khayr qabo wax badan oyna sugaynin oo wanaaga allah siiyo kuwa kale ee u diyaarsanaa ee laga hormarana inay iyaguna muxuu ah ka qayb qaataan ayagana waxaan leenahay ajir badan allah siiyo waa idiin furan yahay annaga waxaan danaynaynaa gurigan inuu noqdo saldhigi waa yahay waa inuu noqdaa meeshii dowladdii mudulood ay ka dhismi lahayd waa inay noqdaa meeshii dowladda soomaaliya ay ka dhismi lahayd waa inuu noqdaa meeshii gobolka banaadir laga dhisi lahaa cid kasta oo wax garatana waxay raalli ku tahay in qolo kasta meesha ay joogto inay xukunto maamusho amnigeeda ka shaqayso ujeeddada ugu weyn oo dadkan loo aasaasay oo loogu talagalay inay muxuu ka miraliyaan waa inahaas marka waxaan leenahay aan kusoo koobaa ilaahay ajir iyo xasanaad aan la koobi karin allah idinka siiyo ducada waxaa iskale sheekh muuse aad ducayn doono inuu u wada duceeyo guud ahaan wiilasha iyo gabdhaha madasha qurba joogta iyo guud ahaan muduloodta kale ee qurbaha joogo waxaan rajahaynaa inay isku soo biiraan oo ay wada arkaan maslaxadda guud cid maslaxad gaara wadato hadday jirta waxaan leenahay walaalow macaano waa ku jecelnahay malaalow waa ku jecelnahay maslaxadda guud u tanasul taada ka tanasul hadday gabarta waxaan leenahay walaaley waa ku jecelnahay muduloodaa tahay maslaxadda guud u tanasul taada ka tanasul maslaxadda guud ayaa lagu gaari karaa midnimada iyo guusha iyo horumarka dalkan iyo dadkan in muxuu ahaa horumar sameeyo sidaasayna dowladdu ku noqon kartaa mid lagula xisaabtamo marka waxaan leenahay ducadan noo xasan المصور الغفار الغار وهب الرزاق الفتاح العالم الغابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم عدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود الشيخ الحق الوكيل القوي المتنولي الحميد المحصن القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الغد المقتدر المقدم المؤخر الاول والاخر انت العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المعروف والنفع والنور الهادي البديع
والباقي الوارث والرشيد الصبر والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهي الله نقبل الله نقبل الله نقبل ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها إلى سائر إلى أسماء وتوقينا والحد يدين ورون وآخرين ورون لبدا وإن لنا الآخرة والأولى ودلب إلى أسكله لبدا الله نقرحي dadka jooga Allah qurxiyo dadka maqan Allah qurxiyo ku dhintan Allah naxariisto wadankan caaram iyo nabadgeliyo Allah dhigo dawlad qiimo leh dadka u roon oo diinta u roon oo dalka u roon oo aan dawlad toogsi ku jirta ahayn oo dadka maalkiisa iyo shidaalkiisa iyo dhulkiisa iyo diintiisa ka shaqaysto la isticmaalaysiyo gacmuhu u hoorsanayn Allah noo dhiib dalkan waa nagu adaa dalkayna Allah noo irmaanay dawladdeennana Allah noo qurxiyo midda la sugaayo dadka odayaashu waxay ku duceeyaan dawga halka tegana nama haraatiyo halka soo socdana nama herti yidhaah marka dawladda mid horoo tagta nama haraatiso sideerana ha ku baxdo mid wanaagsanoo qurux badan ilaahay asaa dadka ka yaqaane dalka Allah u dhiibo haddaan oo bikayri khilaafin ah oo dadka u roon oo diinta u roon oo dalka u roon